السلام عليكم أصحابتي ذا كسود هذا يوتيوب جنال كإسماعيل عبد الله حالة سياسة يوميد بنا أدنى ما يكون فرق البيت أيام أنت كشيء مرحلة عصب أو سوين وقل كشيء درين كشعب كصوماليات ما يعاوز مرن ضلسي دلعسين عيدا أو سؤال ضلسي هذا الكل أو ستوس لوم وجهه مدحوينها يو حالة بني آدم ما أوسي حمينيسا ضمان أرمهان أيها هالمرسوق يميت باريتان دير كدبوها حل مهم هلو ما يعاوي عبد الرحمن أبوكر محمد oo noqday madaxa xafiiska doorashooyinka koonfur galbeed laakiin isla markiiba waxa soo baxay dood culus magacaabis ku salaysan kartiba mise waa mid ku dhisan xiriir qoys iyo siyaasad dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qaaday talaabo lama filaan ah dalacsiin ayuu siiyay ciidamadii baydhabo ka saaray madaxweyne lafta gareen tani ma awaalmarin baa mise waa fariin siyaasadeed oo qarsoon intaas kuma eka musharax maxamed fargeete ayaa hadal kulul oo aan hore loo maqal si toos ah ugu sheegay dhismaha koonfur galbeed meel dheer lagu sheegay shakhsiyan wali goob joog hay lamadii bilikooda abriil xafladii oo lixda gobolka aasaasay oo meel madaxtooyada hor hada jartay goob joog haya walaalaha mari wal yar mee dhiiga la huri shacab badan askar badan dad badan aan dhimideen koonfur galbeed in si waahay noogu burburt khilaaf yaro dhataan marna meen dul qaado kor koonfur galbeed kuwiinta jagil weydiyo ima sabl weydiyo kuwiinta koonfur galbeed way baahanta in la wada dhisado inshallah hayn yaan baahanta أسبوعي كور دلا يدوش كتابين أو ديار المايدن يو جيلال جر أبار جرت صون أته يو يدوش أنتو كتابين ويجو أنسان حتى إيه أولاديو أو أنكويلان جو أنسان ما يشين أرنتاس يو يدوش كجي روغان نبت كيلو كوران جو أحمد سياسة شانتي وين نوبلان إن ولا أنجا نو يون هادو دور روغان suurgal managadaas intaas oo kale markala nagad wal nidaam leerow iyo wal jigil siyow iyo wal doorashada majaraas illa walaanagan banaanka jaraan la qanciyo la nagada iyo wal iska faraxsiye ganjal saayida yees dhisadaana koonfur galbeed walaa wan hamarni وإلى رساهرة رئيس مدحوين حسن شيخ محمود مدحوين وصود وينتين هاو قادن إناد وريكتن وحكنته هذا الكام حوك ديجين هاي مبلوغ معارض عصبة sidoo kale magaalada Baydhabo waxa ka dhacay kulan muhiim ah oo ay haweenku kula yeelatay wasiirada Khadija Mohamed Al-Maqzumi iyadoo laga hadlay xaaladaha haweenka xuquuqda iyo mustaqbalkooda laakiin dhinaca kale xaaladda bini'aadanimo oo aad u daran ayaa ka jirta isla deegaanadaas xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qayladaan diray haddaba maxaa ka socda koonfur galbeed maxay yihiin fariimaha qarsoon ee ka dambeeya dhacdooyinka ha ka dhaqaaqin warbixintan dheer oo dhameystiran ayaa ku sugaysa fadlan page like noo saar subscribe noo dheh si aad ula socoto muuqaaladeena kadib baaritaan iyo wadatashi siyaasadeed waxaa la magacaabay cabdiraxmaan abuukar maxamed oo noqday madaxa xafiiska doorashooyinka koonfur galbeed cabdiraxmaan waa shakhsi leh taariikh siyaasadeed wuxuu ka tirsan yahay xisbiga JSP wuxuu hore ugu soo noqday diiwaan haye wuxuu hogaaminayay guddiga xulista musharaxiinta banaadir sidoo kale wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha madaxtooyada tan iyo 2022 markii uu xilka qabtay mudane xasan sheekh maxamuud laakiin muranka ugu weyn wuxuu ka dhashay wuxuu adeer u yahay jibriil cabdirashiid hogaamiye ku meel gaar ah tani waxay dhalisay su'aalo ma jira isqara wakiil doorashooyinka ma noqon doonaan kuwa hufan inta ani aan karo min hal darajada lacagta ina idin kugu bishaareeyo bishan waa bishii guusha waay waa bishii abriil waay waa bishii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadadaas dheer ee 2009 ay ugu dambeysay in la soo maro oo umadaana
ay isbaara nimanka ugu taalayaad soo marteen mana idinkaga sheekeynayay dee cadowga ku soo disheen oo ku soo dhaawacdeen iyo intii yareedoo idinka badbaaday oo firxadkooda aad u jeedeen Soomaan meeshii daynuna ahayd dabcan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ballan u qaada shacabkan ballantu u qaadana waxay tahay inuu u dhinto u dhaawacmo say ayaga nabadgelyo u joogaan waxaan rabaa inaan si qalbi ah oo niyad ah inaan idinkaga mahad celiyo waxaan rabaa qodobka ugu horeeya horta inta ani aan karo min hal darajada lacagta inaan idinkugu bishaareeyo saraakiisha idin hogaaminaysay iyo saraakiil xigeenka ayagana ballantaas oo kale qabaan guushi aad soo hoydeen abaalmarinteeda ay leeyihiin taliyaha ciidanka ayaa ku dhawaaqay in hal darajo la siiyay ciidamadii Baydhabo ka saaray madaxweynaha Laftigareen tani waxay dhalisay laba aragti awaalmarin ciidan fargelin siyaasadeed qaar ka mid ah shacabka ayaa aaminsan in tani ay muujinayso in ciidanka loo adeegsanayo siyaasad musharax Maxamed Farkeeti ayaa si cad u muujiyay diidmo madaxweynuhu soo dhaweynteenu ha u qaadan inaad nagu xukunto hadalkan wuxuu xambaarsan yahay digniin siyaasadeed diidmo bilow mucaarad falanqeeyaal badan ayaa leh tani waa calaamad muujinaysa khilaaf sii xoogaysanaya magaalada Baydhabo wasiir Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa kulan la qaadatay haweenka waxaa laga hadlay caqabadaha haweenka fursadaha tacadiyada haweenka ayaa sheegay in ay u baahan yihiin taageero dhab ah wasiiradda waxay soo bandhigtay guulo waaweyn oo 30% qoondada haweenka sharciga ka hortaga tacadiyada jinsiga ka hortaga gudniinka fircooniga sharciga arrimaha qoyska waxay tilmaantay in haweenka ay leeyihiin xuquuq buuxda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray baaq degdeg ah waxay sheegeen awaaro daran colaado soo noqnoqday cunto yari biyo la'aan waxa si gaar ah dhibaataysan caruur nafaqo darro haweenka daryeel la'aan barakacayaal nolol adag xeryaha barakacayaasha waxay noqdeen kuwa ciriiri ah kuwa aan adeeg lahayn marka la isku daro siyaasad kacsan doorashooyin muran leh xaalad bini'aadanimo waxaa muuqata xaalad halis ah su'aalaha taagan ma jiri doonaan doorashooyin hufan dowladda ma xalin doontaa dhibaatada ma sii kordhin doontaa xiisada koonfur galbeed maanta waxay taagan tahay meel xasaasi ah magacaabis ciidan siyaasad iyo musiibo bini'aadanimo dhammaan waxay isku biireen hal meel hal su'aal matanin bilow isbedel weyn mise waa khilaaf sii xoogaysanaya adiga maxaad u aragtaa daawade